goormay xabsi gashay marka taasna xabsiga waxay dhacday 2022 sanadkiisii. maxaa kalifay marka inaad xabsiga gashay? maxaa dhacay? xabsiga marka waxaa kalifay horta waa inaan wax yar replay dib u laabo. haye waxay ugu kalifay ingiriiska inaan kasoo tago yaa waxay ahayd divorce oo Si fiican. xaaskii aan isqabnay ilaa khayraa siiyo ayaa la isfahmi waayey. waa gartay. markii isfahmi waayey dee waxay noqday inuu kaa tago meesha. si fiican. marka waxaan 6 sano ku dhisahayey yaa 6 bilood ku dhamaantay. energy badan gelisay. energy badan gelisay, culays badan saartay. wixii baa adii waa isqaban waaye. isqaban waayey. imtixaan xagga min allah. haye marka waan soo laabtay. nafta isiin weyday inaan jino meeshii burburkii ka dhacay meeshii inaan iska jiro. inaad sii joogtid. waan soo laabtay alxamdulilah waan imid. marka niyaho badanaa soomaali haddaan nahay iyo afrikaanka guud ma naqaano wax la dhaho therapist iyo psychologist. si fiican. hadaad yani tagtid waxaan ku dhibahaya waxaan kugu jira kaa buuxahaya inaad kala hadashid. inaad qof kala heshid. ka waran marka waayahani markaad finland kusoo laabatay maxaa dhacay marka? another culture shock. haye because waxyaalo waxaad soo aragtay dadka badankooda dhalinyaro badankooda halka ku nool si fiican. aysan arkin ama aysan fahmin. haye marka waxay kugu noqon waxaad yara dareemi cariiri waa gartay. because ideaska kugu jira iyo fikradaha adiga kugu jira iyo nanka kugu magaaga si fiican. de qofka duusan ku fahmin uma sheegi kartid. culture shock. waxaan kaloon dee hadaf baan lahaa. si fiican. waxaan soo yeeshtay hunger iyo ambition. waa qaso gartay. oo waddan baa ku sugahaya, dad baa ku sugahaya, meeshaadii ma ahan, waddankaagi ma ahan. wax kaste ood waddankan ka noqoto weli waxaad u tahay ajnabi soomaaliya. dalkaada iyo dadkaada wax u qabso adoo aaminsana soo laabatay. haye maxaa la kulantay marka dhibaatooyinka maxaa la yidhaahdaa sidee kuu saameeya marka? dad kaaweyn maxay dhihi jira way ku qadameen. dhalinyaro biyo kaaweyn iyo daad kaaweynba miya wax saamaya? dabayl iyo daad kaaweyn waa ku dafa. dhalinyaro badan marka waxaa joogay waddankaasaan dhihina waqtigaas waxay ahayd 2006kii markaan soo laabtay. si fiican. weliba samar bay ahayd. si fiican. samarkana waa sagan so de dad aan isfahmi karin. waxaan ka wadaa dee bakshaal baan isaga jiraa. monday ilaa friday waxaa laga yaabaa waa la shaqayn. markii la shaqeeyo haddana waa la yaro baashaaday. haddana waa one cycle undee lagu jiraa. andadaani haye markuma booye waxaan ka qaaday stress trauma kalaan kasii qaaday. ma intan un baan dee noloshu intan way khasab way ka weyntaa. waa gartay. finlandna waa meel xirxiran duuyo dhabaa taqaan. si fiican. si fiican. high schoolka kenya aan kasoo dhameeyey. halkan markaan imid yaa dee waxaan damcay jaamacaddii baan galan. waa jiq waxay taagan yihiin suurtagal maa. suurtagal maaha. haye because shahaadadaad adigu wadato annagu dee waxba umaba aragnaba ma aqoonsan. ma aqoonsiyo. waa gartay. marka waa inaad hadda iyo gadaal aybusuukiyo iyo amati qowlo iyo waxyaala dee meelo yaroo hoos hoose koway kow. kow iyo kow. haye marka dhalinyaradii adiga aad isku mid aheedeena dabcan waa ku dhaafeen. waad dhihi kartaa way dhaafeen khasbiyin. si ay ii dhaafeen way jirtaa dhalinyaro intay ka baxeen buukiyo halkan oga baxeen. si fiican. macdanka ilaa markii qofka la wado dib u dhaca u imaanaya. dhacwa way manahaya. way jirtaa dhalinyaro intay lukiyo khasabnahay intay amadkoodu galeen. si fiican. ode amadkigoodii ku shaqaysanahayo iyaguna horumar gaari. marka labaan u dhexeeyaa
kuwana way iga hooseeyaan oo yani shahaadada anigu watay khibradan anigu wato ma wataan kuwana way iga hortegeen marka waa shock kale waa xaggee iyo hadda saacadan ka bilaabo finishkaygiina inkastuuna iloobin ugu daciifa markaan 6 sano luqad ku hadlay sidii hore ma aha marka wakaas marka waxbarashadii haddana waa la qabsan weyse sax waqti intee leega kugu qaadata inaad soo kabsatid alxamdulilah horta waxay igu qaadatay sanad baan go-aan ku gaaray oo waxaan dhaha okay sidan ma sii soconayso sidan kuma jiri hayo marka in adeerkay waa aabbahay la dhashto ingiriiska degan yaa wacay waxaan dhaha adeer saasaa jirta waan soo socdaa ingiriiskan kugu iman diyaar soo dhawow dhahay si fiican waan tegey ingiriiska luuqadina si fiican baan loo qaaday soo dhib kalama kulmin ingiriiska markaan tegey baa isla markiiba waxaan helay marka college ama amaticol waxay dhahay si fiican amaticooligii waan galay alxamdulilah waa isugu kay toosnay si fiican yaa ilaahay kuma darnaade waxaa iga daba timid warqad oo leh da'dii militariga gaadhay wayna soo laqatay warqadda finland ay ka timid ma dhowna ingiriiska inaad joogto say ugu heleen adi sheeg si fiican dabcan markaas ingiriiska yurub uu ku jira de yaa yurub ku jiray brexit wali ma dhacay say ugu boosiis badan tahay solal waa gartay okay haddana waa yar walba haaray waxaan noqoniyow xaggay howlkan cusubaa bilaaban rabta howlka cusub bilaaban rabtaa college cusubaa gal rabtaa college cusub gal rabtaa boarding school kale tana subxaan allah dee waa soo laabtay anuu weliba dhibsanay waa gartay haddaa soo laaban weysana askari baxsad aa tahay baxsad baa tahay saa marka u soo laabato haddaad u timaado dhakhtar isbitaal whatever airportka lagaa soo si fiican marka waa soo laabatay waan soo laabtay iskama waarin militarigii ka waran marka ma aade isagana waa aaday sidoo kugu bilowda marka militarigii iyo boardingka cusbaa waxay ila ahayd aniga cup of tea waxay ila ahayd koob shaax because dee horaa unu soo arkay wax ka adag ba waliba soo arkay oo waa tababaran tahay waxaan tababaranay jafaa lagu qaraacayo ma weysaysatay kan iyo kaas iyo is-eryo si fiican soo arkay militarigii markaan imid waxayna geeyeen allah mustacaan qowla basic ku yaala gobol ahaa 6 bilood valkiya loo ahaa may waxay gaadi vekarayabe si fiican si fiican dadu 6 bilood baan kusoo afjaray 6 bilood markaan saa u dhameeyey wallahi ma sii dahdaahin waxaa adigu haddana waxaan jooga maraya 8 bilood bal waxaan yidhi bal isku day si fiican inaad waddanka la qabsato oo kulliyada adoo yar baa timide marka weysada meel unba iska qaban weyniyo markaad yar tahay moogta ilmaha haddii isagoo yar ay ka wareerto ay ka wareerto oo maxaa la dhahaa roots soomaali maxaa lagu jira geedka xididaha haddii halmar la qaado haddii haddana isagoo weyn marka inuu xidid kale meel kale ku yeeshto way adkaanaysaa waqti dheerna way qaadanaysaa si fiican anigana dab baa igu shidnaa oo ah dee waxaa iga yara dhaadhacsaneyd inkastoon ku khaldanaa fikirkaas khayrkaa way kaa tegey si fiican si fiican kasoo meel fiican tagnaa azuke dhallinyaraaska ahaa si fiican adduunya waan soo arkay waxbarasho waan soo arkay laakiin taasa ugu qufulin si fiican dagaal markii iska dhicisa marka bilaab marka ilmuhu wuxuu yar yahay waxa lagu kobciyo haddana se oga baxda way adagtay difaac inaad ku jirto si fiican ka waran marka la qabsashadaada dambe finland saaxiibo fiican ma yeelatay intee ila ayaa macnaha haddana ee kugu qaadatay inaad soo kabsatid markan koog soo laabanay ma ingiriiskaa ka soo laabatay maxaa tagtay militariga kasoo baxday maxaa dhacay marka way arkay zaid u arkay sababta ay tahayna waxa weeyaan again qofka
markii aad dee kuma rabo inaad dhaho dadkan ama waan ka maskax badanahay ama waan ka fiicanahay ama waan ka wanaagsanahay ma aha haye fikirkanigaa kala duwan waan hadduu qofku isagu u qanacsan yahay inuu 3,000 iska qaato bishii u qaato oo iska degan yahay waa khayr alxamdulilah dhib male si fiican waa wanaag si fiican ani wardi ahaan waxaa igu jirtay intan wax ka weyn oo inaan dee weligay un hal shaqo oo weliba meel qurba ah inaan joogo oo haafna canshuur qaadato haaf kalena ay been ku baxdo una jeeb waxba ku soo harin way waa dhintay haye marka fikirkaagu hadduunan marka haddaadan haysanin qof aad isku fikir tihiin ha oo waxaan discussion kala yeelatid oo ka shir waad wareegaysaa ate si fiican si fiican dhalinyaro fiican way joogaan waqtigaasna way joogeen fikirkana baan ismi lahay waan gartay so haddana waxay ugu noqotay ingiriiska ay ku laabtay waan gartay waxaan dhahay may waa jaaw waa ka tagtay Finland haddana waa gati haye alxamdulilah hadda doorka markaan tegahayay kolleejka ka waran marka college excellent waa soo waa dhamaystay soo dhamaystay haye college-kii hal sano u ahaa marka hal sanaa la joogay markaan hal sano joogay ii yara haye so doorkan markii aan laabtay waa reer dhan waa saaran si fiican hooyo iyo ciyaalkii iyo kulli marka alxamdulilah markaan saa u tegey haddana waa cabaar ay u qaadatay adugu bilowgii jaamacad baan dalbaday alxamdulilah jaamacaddiina waxaan ku helay adugsiis si fiican because maadaama ay kenya tahay wadan ingiriisku soo gumaystay ha anda British colony waaye british fogan shahaadooyinkooda way aqoonsan yihiin collegena waa kusan yihiin ingiriiska si fiican marka alxamdulilah jaamacaddii baan halkaa ka helay si fiican waktigaas ingiriisku way shiday ingiriiskuna walaa ingiriiska bis maahan wadan kastaan dhihi karaa finishka way ka fufan yihiin si fiican si fiican oo meel uun kuma qufna oo difaaca kuma jiraan wadan aad u farfaran way furfuran yihiin jaamacaddaada waa soo dhamaysay marka waan soo dhameeyey alxamdulilah Finland aa kusoo laabatay yes waa ingiriis oo ku guursaday maasha allah alxamdulilah waa laba wiilba ii dhashay jawigaad waa degay jawiga wuu deganaa si fiican wax dhiba ma jirin haye laakiinse noloshu dee raaxa un ma ahaan karto markaas haye meel unbaa imtixaan xagga ilaahay oo kusheegay qur-aankiisa oo dhahay waa laidin imtixaamay si fiican imtixaama yaryar baa iska bilowday jaamacaddii mar alaadii markii qalin jebiyey kula yom huwa fi shaani kulla yawmin huwa fi shaan haye Finland aa kusoo laabatay marka maxaa dhacay marka finland waan kusoo laabtay haye yaa again yaa waxaan damcay master degree marka inaan balbilaabo haye bachelors baan soo qaatay si fiican dee haddana kadalika sidii un maya shahaadadu waa okay waa maasha allah waa fiican tahay laakiinse waa haddaadan finland aadan ku dhamaynin waxaad u baahan tahay sanad iyo bar inaad haddana vent ama tikorkayga ula soo dhamaysid ama tikorkayga ula markay dhamaysid markaas jaamacad iyo master iyo waxaas noola imo haye waan gartay Finland marka goormay xabsi gashay marka taasna xabsiga waxay dhacday 2022 safarkiisi maxaa kalifay marka inaad xabsiga gashid maxaa dhacay xabsiga marka waxaa kalifay horta waa inaan wax yar replay dib u laabno haye waxay ugu kalifay ingiriiska inaan kasoo tago yaa waxay ahayd divorce si fiican maxaaskii aan isqabnay ilaa khayraa siiyo yaa isfahmi waayey waan gartay markii isfahmi waayey dee waxay noqday inuu kala tago meesha si fiican marka waxaan 6 sano ku dhisahayey yaa 6 bilood ku dhamaatay energy badan gelisay energy badan gelisay culays badan saartay wixii baa adii waa isqaban waaye isqaban waayey imtixaan xagga min allah haye marka waan soo laabtay nafta isiin weyday inaan jinow meeshii burburkii ka dhacay meeshii inaan iska aad sii joogtid waan soo laabtay alxamdulilah waan imid
marka niyaho badanaa Soomaali haddaan nahay iyo Afrikaanka guud ma naqaano wax la dhaho therapist iyo psychologist. si fiican Intaad yani tagtid waxaan ku dhibahaya waxaan kugu jira kaa guuxaya inaad kala hadashid inaad qof kala heshid waana daawo weyn. si fiican taas iga hoos baxday marka waxaa kalifay inaan xabsiga galo dagaal baan ku galay oo adoo marka culeysyadii oo furiinkii iyo waxaas adoo ku jiro oo markaas marka dadka isfahmi weyse dadkiina isfahmi waay marka dadkina waa ku fahmi waayeen adiga nin culeysyo kor saarnaa tahay ana culays baa kor saaran marka dadkuna maba ahaba responsibilitygooda shaqadooda inay iyagu fahmaan ma aha waxaan waa wax dhakhtar loogu talagalay because qofku hadduu dee kansar ku dhaco dee qof waxaa loo geeyaa dhakhtar kansarka qaabilsan si fiican marka aniga laftarkeyga waxaan u baahnaa cilmu nafsi psychologist inaan u tago oon dhaho sidan dhacday maxaa xal anyway warka waxba inaan kugu daadin si fiican 2002 bisheedii faraad haddaan si fiican u xusuusto dagaal baan galay qof baan adugu waan dhaawacay si fiican taas awgeed baa marka la isiiyey xabsi ku gashay suu galay xabsi finland aan gashay xabsi finland meeqaa ku jirta xabsiga 2 sano iyo 6 bilood aan ku jiray bal wax nooga sheekee marka nolosha xabsiga marka another boarding school aniga boarding school waa kala harlaanay horta wax sahlan maa si fiican badanaa wadamada kale iyo adduunyadaba waxaa ka dhaadhacsan Scandinavia xabsiyadoodu waa hotel oo meeshii oo qol keligaa waad leedahay qabiis wuu ku jiraa tvgaaga cuntadaadi okay waxaas dhan way jirtaa yes laakiinse bilow aadan looguma talagelin in ay ku jiraan qol yar 18 saac 19 saac maalintii naftu ma xamili karto waa gartay ilaa man raxma allah inaad ilaahay xoogsatid ma ahan wax naftu xamili karta ma ahan waa sheeko sahlan maa way adagtahay marka aniga wardi ahaan shakhsiyan meesha markaan galay faa'iido badan ma kala because waxaan aaminsanahay philosophy waxaan leeyahay personally sheekadu si kastoo u xun tahay wanaagna wuu ku jiraa waa gartay oo ilaahay maba samayninbu wax 100% xun si fiican again bishii koowaad labaad way arkay xasee ula qabsan nacdaana oo gaala oo aan dee ilaah taqaanin dee inuu ku amro ku maamulo xaggan gal xaggan ka bax saan yaal waalidkay ummaddii inay shoog ku noqotay dad badan baa qaadan waayo oo dhahay may ma wardigaan ogaa suurtagal maayo ninkaas xabsi galay wax kale ii sheeg taasaa marka waxay kutusaysaa dadku badanaa waxay ku tusi some face laakiinse waxaa jirta waxyaalo badan oo qarsoon ummaddu oon dadka lagala hadlin si fiican ma u malaynahay inaan waddankan ku haysano psychologist Soomaaliya hadduu jirana ma ogi si fiican oo dad badan baa ka faa'iidaysan lahaa marka calaa kulli xaal meesha marka aan galay iyo arrimihii koowaad ee ku dhaqaaqaya waxay kamid ahayd because markaad qol keliga ku jirto waad isla hadlaysaa brad si fiican waa nafta way kuu sheekayn adna waad isbaranaysaa dad Soomaali kale ku jiraan xabsiga way ku jireen ilaa ay meeqo wallaahi horta waktigaas 2020 ilaa yowma haada waxaa la bilaabay dhalinyaro badan oo Soomaali ah in xabsiga geeyo midba case kuwana waa dagaal kuwana waa daroogo kuwana waa sheekooyinku waa badan dhibku waa badan dhalinyaro Soomaaliya way joogtay ma qiyaas kartaa marka aniga horta meeshii la igeeyey waa meel gobol ah hariib laakiin si fiican meeshaan aniga ku jiray sectionkayga waxaan u ahayn aniga marka lagu daro lab marka saddexdahay Soomaalina dee marka ay cadow ku dhex jiraan way
saaxiibo waay. saaxiibo wey iyagoo xataa laga yaaba inay cadow isku yihiin Ah, cadowga kale waa iska ilaali waa gartay. marka dhalinyarada waan isxibsanaynay waan isa joognay waan sheekeysanahay laakiinse mid walba qolkiisu geli maalintii at the end of the day waa gartay. waxaad isa joogtaanba waa 3-4 saac maalintii is arkaysaan waa nili ogolyahay inaad kulantiin. marka adaa kala furo Ha waqtiga qureecda ha. haddana waqtiga barnaamij marka la aadahay Mhm. iyo kuwii iskuul aadahayna waqtiga iskuul inta kale saas ku aragtaan waa adagta waa gartay. marka maxaa ka baratay waqtigaada marka intaad xabsiga ku jirtay? waxa la tiri waxa xisaabi u dhamaan waxa tiri ugu dhamaada waqtiga ugu ordi Haye. horta waxay la ahayd dee subxaan allah ma halkan baa saaxiib oo 800 beri oo soo socotay ku jiray waay maskaxdayda way qaadan wey marka waxaan dee isbaray in aan anigu yeeshto routine Safiya. routine ka baxsan routiinka uu xabsiga ku siinaa Haye. because whether you like it or not waa hayd meesha nidaam baa jira Haye. waxaa la albaabka la furi 7 subaxnimo quraacda bannaankii taalaa haddaad soo doonanaysid soo doono haddaanan soo doonanin celay ku jirtaa albaabku wuxuu furan yahay nus saac quraacda la qaado haddaad shaax iyo wax samaysanaysid qolkaaga haddana ku laabo marka anigu runtii waxaan lahaa because albaabka waxaan arkay marka waardiyayaashan albaabka marka ay kugu furaan subaxdii adoo jiifa hadday kugu furaan waa lagugu qaylqaylin oo istaag yaa lagu dhihi oo soo bood ma aan ku arko because dad waxaa jira isku jira meesha xabsi dhexda soo isku dila. dhex jira marka inaad physically qof qof caadi tahay caadi tahay waa inuu arko in lagu baaro waa. lagu baaro waa Haye. markuu flashbacks waxaan soo xusuustay toos istaagtii xamar waxaan go'aansaday marka niyahow soo muslimatida soo mitbatida salaad subax kabacdi maxaa hordooy ku waciyey marka anaa markaas soo kaco salaadeeda soo kaco tukado hurdo kuma noqon jirin Haye. xafis baan isa geli jiray ama pushup baan isa geli jiray ama meditation baan isa geli jiray ama newskayga iska daawan jiray waa gartay. dee armayn oo kasoo baxa oo sariirteeda oo geejisan oo waxba oo jagjaga si fiican. adigu military aad tahay. military ahaa Haye. bilka bacdi waardiyaashii markay arkeen marka subax kasta uu ninaa soo taageen ha yaa waxay dhaheen kan kuwaan aragnay maaha nin kan saan moodayna ma aha si fiican. waxay islahaayeen de waa iska ajnabi oo subax kasoo qaylqaylinaysan oo ka wasaqaysan oo meesha uraysa iyo wax saasay islahaayeen si fiican. nin diyaarsanay arkeen. in diyaarsan ay arkeen Haye. adigu wixii markii la iga waayey yaa waxay bilaabeen marka dee juqjuqayn Haye. bal aan waa kale waa qof violent aggressive guy waxaa lagu soo xiray dil si fiican. marka bal aan isku day inaan ka xalaansiino waa lagu tijaabinaya markaase waxay bilaabeen subax kasta ma ahan laakiinse randomly sida loo joogo albaabkii subaxdii markay furan arkaan anoo dee diyaar iska ah inuu qolka iska soo galo oo bilaabo inuu dhaho waxbaan waxbaraynaa in darooga meesha ku jiro si fiican. waxaa lagu talajina qolka inuu kugu jiro taasna wuxuu un rabaa un sariirtan goglan iyo wagaagtan iyo alaabtan rastaysan inuu kala firdhiyo inuu kaa jijibiyo rabo. kaa jijibiyo Haye. intuu kor qaado kala turturo iyo boos intuu kaa firo ku dhahayo waxuu kaa waayay jaab waxaad adaa samaysanaya marka. alaabta qasab marka intaas waxay ka tahay car hadduu aaba ku dhalay dee marka wax ka sheeg igu soo hadceli ama iswaaba. iswaad intuu rabo haddaa iswaashana calafkaada cunaya. waa gartay. marka waan kulkula qof kulkula waa gartay. marka waxay soo bartay it's a healing day self control iyo xanaaqiya laga dareemo si fiican. si fiican. ka waran marka intaa xabsiga ku jirta marka adiga iyo dhalinyarada soomaaliyeed ee xabsiga ku jira walaalo ayaad xideen dabcan ma sheekaysan jirta awal shaysan jiraa luuqadda soomaaliya ku sheekaysan jirta bas finisha ku sheekaysan jirtaa marka ilaa waani la maqlaaye. taan ku baxsanaa taas ahayd batee Haye. marka caadiga loo sheekeynayo waa sheeke guutaag waa iska finishkii
si fiican si mar fiican labaadii markii la dafco day in wax la isku ogaado iyo sir iyo kan yaa af soomaali la geli jiray ama ayaga la xado ama iyaga la xado waa iska yaqaanaa si fiican si fiican af soomaaligaan ku sheekaysan jirnay iyaguna way ka dheli jireen ka waran marka intaa xabsiga ku jirta wax jaaliyad ah oo soomaaliyeed oo xabsiga nagu soo booqda ma jirta hal xaba hataa maarag unfortunately 2 sano iyo bar intaa xabsiga ku jirtay jaaliyad soomaaliyeed ee finland ka dhisan ama urur oo xabsiga nagu soo booqda ma jiraan Ma- culummada ka waran marka culimadana dee anugu waxaan indhahayga ku arkay unbaa makhraati ka ahaan karaa sooma si fiican ma arag dhowr jeer baa waxaa noo yimaaday dhowr jeerna markaan ku leeyahay waa jimcaha yaa waxaan xusuustaa waa 2 jimca ay ahayd yaa waxaa noo yimaaday imaam oo marka khudbadii noo akri ilaahay khayr badan ha siiyo dee ma ahayn qof tababar wata oo sidee dhalinyaro loola hadli karaa weliba xabsi ku jira oo dhiban imaamka marka ma dowladda nin keenta marka niyow siduu ku yimid wallahi ma aqrin arrin dowladda mayaa u yaaray ma sheegi karo ma soomaaliya oo ahay marka mise carab oo ahay soomaaligu ahaa marka suuriga khudbadan af carabi ku akhriyay waa sunnada af carabi lagu akhriyo si fiican laakiinse waxaa dad joogtaa dee dhalinyaro marka idinka u kaadi waxyar aha dhalinyaro soomaaliyeed u badhini marka carab badan ma joogin ma joogin halta soomaaliya loo badanya meesha marka af carabiga ugu khudbeeyey af carabi loo qudbay khudbada kadib marka af soomaaliya ma ku sheegay maya waa iska subxaanallah sidii uu duceeyey khayran sugnaada idinka ma nii duceey meena ilahay xabsiga inuu naga soo saaro duco guud dee ah Haye. uu soo baxay ani marka waxa aan rabay ama waxa aan filanahayey ama waxa aan tabahayey waxay ahayd dhiirgelin adeer waad soo jabteen meeshana ku jirteen ha isdhiibina ciidda madaxa ka ceshte qur-aankiina ku dhiga waxaan way dhacdan ragow soo jabaaba ka soo laaban si fiican si fiican iyo waanaa ka sugaysaan iyo waadanka sugayna waxaan marka ka dareemay inay dhib ku ahayd meesha inuu fadhiyey oo dee I don't blame him because qof la keensaday oo ahayd qof la keensaday weliba meeshan dee waa meel energyga waa dareemi kartaa waa dad la candibaya meesha si fiican sawirkiisa waxaa ka hayd imo akhri 2 ragcadood tuko wif ka tag ka carar meesha dabcan hadafkana maba ahanba inuu nii wacdiye ama laga yaabaa in macnaha bes inuu halkaas oo salaada nii tujiye oo baxo oo baxo haa shaqadiisa ah shaqadiisa ahayd marka jaaliyadda haddaan wax ugu soo noqdo jaaliyad soomaaliyeed oo haddee dhalinyarada ku xilsaaran intay timid oo shaqa ka qabtay maarag ama xabsi nagu soo booqo xabsi nagu soo booqatay maarag jaaliyadda finish ah meesha way joogtay oo dhalinyarada kala hadlaysa qaygdeedka darooyinka cilmi nafsiyin way joogeen jaaliyadda finishka oo meesha nagu soo booqanaysa ma kaniisaday ahayeen may kaniisad mayn ahayn waxay u xilsaarnaayeen qaygde kundotus darooyinka qofka si loogu soo celin karo si fiican bay u badnaayeen manaa meesha may degnaayeen mise waa nii soo booqan jireen waa shirka dee mashruuc oo project ay ugu dalbadeen si fiican dowladdu lacag ku siisay waa gartee marka shaqadooda ba ahaydba inay yimaadaan meesha marka waxaa ognahay xabsiga inay kaniisadaha ama dadka aaminsan gaalnimada ay imaadaan ayagoo culamo sheeganayo ma jirtaa xaggiin ina la imaade inay toos kugu yimaadaan oo albaabadeedan ku soo qaraacaan ma jirto laakiinse meeshu kaniisad bay leedahay xabsiga marka dee kaniisadda way aadi jireen oo kaniisadda way ugu imaan jireen wadaadada iyo dadka wada diinta faafina si fiican marka man xabsi ma imaan jireen gudaheeda ma soo geli jireen xabsiga gudihiis
haye meel dhan yaa jirta oo gaar ahaan wa idinka marka ka soomaali ahaan mana imaadeen marka maya haye yani diin faafin toos ah ha maya laakiinse ninka baadariga ah ee meesha dee kaniisada maamulkiisa ha haysta ha marmar intuu dee u yimaado kuwan kiristaanka ahee meesha nagula jira ha markuu iyagu u yimaado ula hadlo dee annagana ay maxaad haysaa soo mafracin khayr soo maaha inkastoon kiristaan baadari ah ha haddee waad ii iman kartaan oo waxaad doontaan waad igala sheekaysan kartaan oo kitaab quraanaba isagaa ii keenay oo salliga isagaa ii keenay adiga markaan dabcan un dhahay salli un baahan iyo waardiyaashii salli maxaa la yidhahdaa ha maba naqaanay hor nagu qalabay ha isagoo marka meelaha ordaya maalin markaan arkaan qabtay malbacniyahow waxaad tahay baadari soo maaha haddana muslim baan ahay salli baan u baahnay kitaab quraan within 2 saac gudaheeda uu keenay waa gartay marka contact ay yeeltay marka contact ayaa saaxiibaa noqoteen saaxiibaan noqon haye tagi jirtay marmarka qaarkood marka xafiiskiisa iyo xafiiskiisana waan aadi jirnay haye arrin kalena uu kuu sheegay haye oo dad badan baa laga yaabaa inay yaabaan haye qolka qofku markuu ku jiro waa kuu sheegay 18 saac 19 saac naftu ma xamili karto inay meel ku jirto haye way adag tahay si si kaste oo dee uu wad adag tahay sheekadaas way adag tahay marka fursad kaste oo ruuxu ku bixi karo ha oo qolka oga bixi karo saacadna ha noqotee ha ayuu qaadan jiray waa gartay marka heer waxay gaadhay dee masaajidna meesha kuma haysano haye imaamna kuma haysano haye oo regular ah heer waxay gaadhay maalinta axadda ay iyagu kaniisadda aadahayaan dhalinyaradu axad kasta ma si fiican mar markii dee axadiisu ay naftu qabatay ha ha waa dhalinyaratan u bahantahay inuu magaciisii qorto oo oo yiraahdo dhaho warniyo dhahanio kaniisadda aadaya kaniisadda aadaya si fiican soo meesha jawi ugu soo si bedeshay joog usoo bedeshay waa arrin laga walbahayo si fiican so amba waan aaday si fiican gaalna waa gaal si fiican marka wuxuu isleeyahay way kusoo xargaleen Mm. so hal jeer 2 jeer markii ninkii baadariga ka dareemay inuu isleeyahay okay bas haddayba dee mar imaadeen maadeen haddee waxay wacdiyaasi dee ibliis buu tabliiq uu leeyahay wacdigiisa uu samaystaa si fiican si fiican inuu marka dhaho ahaa akhriisido magaciisa maxaad ka qabtaa oo diintu wini waa sidee oo dee waa nin waxaan soo bartay oo PhD balaayo wata si fiican si fiican oo dadka maskaxdooda uu bedeli karaa si fiican idinkana macnaha naxariisaa keenayseen meeshaas annagana naxariiso waxaan ka helaynay dee wax yaroo nafis nafisa waa markii aan marka arkay dareemay inay dee xaaladdu bariga dhexa tahay ha niyaho meeshan naftoonka kaa baxdee qolkaa isaga jir waa gartay laakiin dad kaloo aadi jiro waa jiraan iska aadi jiro way jiraan kuwa iska aadi jiray si fiican si way fiican jiraan allah lamana yaaday si fiican marka ka waran marka markii culamo soomaaliyeed ay xabsiga ugu soo booqan waayaan baadariyaashana ay ku imaadaan adigiyo diintii macnaha iimaankaadi qawi ah oo adag diintiina si fiican ugu adag maxaa dareemi jirta marka walbahaar walbahaar weyn waxaad dareemaysaa adaa su-aala isweydiin marka si fiican culamo badan baa magaalada joogta wadaado badan baa jooga xaaladda dhalinyarada inay la socdaan waan ogeyn sanasaan filana si fiican marka inay garan waayeen maxaa dhalinyaro badan yaa naga maqan bal xataa inaan samayno guruub ama guddi u xilsaaran in ay xabsiyada intay la hadlaan inay dhahaan awalan waxaanu rabnaa meel ama qol ama space ha masaajid waa dhalinyarada kow si fiican oo wax kale lagu qabano masaajidkaas bas yahay haye number 2 jimco kaste intaan u nimaadno khudbad bas ma ahan ha
inaan u samayno program ama jaaliyad intii lala heshiiyo in sidii ciyaalkan maskaxdoodii looga bedeli lahaa dhibkan ay galeen ha si loo saaro ha oo fikri lahay waayo gaaladii way samaynayaan si fiican maxaa ummadii muslimiinta ku muslimiinta ku dhacay u diiday so walbaar walweyn bi ways ma laga yaabaa marka maadaama reehi maki gobol ay tahay oo helsinkina cabaar u jirto sidaas darteed in liisoo booqan waaya ma laga yaabaa taasaan iskaga dhaadhacsiiyay taasaan niyadda marka damcay bilaabay inaan ku dejiyo ba meeshani way fogtahay si fiican inkastoonan ahayn reason sabab maa way fog tahay bal marka xusnu dani bal khayr uga fikir uma aada u mahadsan tahay waxaana kaa ballan qaadi doonaa inaa xabsiyada reehi maki ah booqan doono dhalinyarada meeshaas aa kaga soo tagtane bal inaa la kulmo aa isku dayi doona hadduu ilaahi raali ka noqdo insha allah taala waxaad ii sheegtay marka qofka biniaadinka ah markii dhibaato ku dhacdo inuu u baahan yahay psychology adi mala kulantay psychology marka xabsiga gudihiisa mise xabsiga kadib xabsiga gudihiisa Haye. anaa raadsaday intii aan ku jirayna badankey psychology waa la hadlay oo waxaan fahmay dee marka waxyaalo badan oo nafsiyan culays u hayay iyo meesha ay ka yimaadeen because waxaa jirta waxa la dhao triggers wax yani waxaa laga yaabaa qofka damage gaaray uusan isagu ogeyn oo maskaxda niyadda subconsciouska gudaha ku jirta oo mar soo kacaysa waa gartay waxa soo kicinahayana uusan isagu ogeyn marka Haye. oo cilmi nafsi wey Haye. so anigii baa marka dib isu bartay oo dhahay ha okay halkan iyo halkan iyo halkaas sidan iyo sidan iyo sidan Ha. yaad ka tahay you know waxaan kaloo marka fahmay aggressive waxa iga dhigay oo yani gacantu iga soo horeyso psychologistaha maa ku fahamsiiyey marka psychologist FNC Haye. marka xamar markaan joognay Ha. boolis ulda ku jirnay Ha. waxyaalo badan oo meesha ku arkay kasbiyan adigiiba waxay kaa dhigahayaan aggressive dhowr jeer baa anagoo fasalka ku jirna baa xabada iska bilaabatay indhahayga waan ku arkay dhowr jeer qof towinayo Haye. ciil badan oo markan yaraa you know aanan yani fahmin oo why ruux mogta dan markuu isweydiiyo sabab Ha. hadduunan jawaabtii u helin si fiican ladood bay sababtaas ku noqon wixiibaa marka wuxuu noqon psychological illness disease bay ku noqon si fiican marka calaa kulli xaal psychologistuna ma ahan dee inuu kaniini ku siinahayo uu kuleeyahay kaniiniga stresska iyo depressionka sigadi ma aha Wuu kula sheekaysanaya marka waa kas waa hadalkan lagula hadlahayo Marka dhibaatada ugu badan marka adi aad tabanaysa markaas dabcan qoyskii markaas burburiyo ahay waka muxuu kaa caawiyey marka psychologista wuxuu iga caawiyey ha isa saarin yani don't blame yourself adigu ha isdhihin un deeni ahow wax xun baad samaysa si fiican guurku iyo furitaanku waa life and death oo kale waa laba isunta waa wax dhaca waa wax normaal ah gabadha hadday kaa dhimata hataa waa noolaan lahayd waa noolaan lahayd marka dee aqbal accepted waxa wuu dhacay si fiican waa laga tegey si fiican hadda iyo in the future maxaa yani hal ah sidaa u socon lahayd inta u socon lahayd hore ugu socon lahayd hore ugu socon lahayd adduunka ula jaan qaadi lahayd Yep. yaa nolol dheer baa ku sugaysee Yeah, Safi. waa la yaryahay. si fiican si fiican si fiican ka waran marka maxaa rabtaa marka inaad noloshaada hadda ka bedeshid horta waxaa jirta waxa la dhaho marka personal goals oo shaksi ahaan iyo goals bulshada guud tayada way cad tahay haddana insha allahu tacaala jaamacad kale ku jiraa dalabkeeda
صفي عن jaamacaddaas qalinjabiyo dhameeyo ها africa iyo xagga waddankay ummaddeydii inaan wax taro which was my goal anyway صفي عن midda guud baa marka waxay ku tahay halkan waan joogaa waddanka waan ku noolahay waddanka waan ka mid ahay soomaali haddaan nahay dhib waxaan qabnaa oo ah aan leenahay waan noqon rabaa laakiinse halkan inaasan dee waxba ka qabsan ama waxba u tarin because waddanku maxamua u leeyahay صفي عن way soo dhaweeyeen oo intaasay caawinahaan wax noo tarayaan marka inaan aniguna bulshada aan ku dhex noolahay aan waxtar keeno waxaa khibrad u leh oo weliba xagga dhalinyarada ah dhalinyarada weliba soomaaliyeed and then dhalinyarada caddaanka واقر كور مركب محمد maxaad kula talin lahayd dhalinyarada kale ee lamid ee ku lamid ah ama xaaladaada ku jiray maxaa tale ayaa siin lahayd nin raga wuu jabaa nin raga waa ninka jaba haddana kaca isjafjafa aan isdhiibin qof walba adduunyadan waad ku fid safiya ha isdhigan ha isdhihin oo way kugu dhamaantay way kaa taabaa haddana eray waxaa ku badan dadka annaga qofka lagu dhaho nolosha ka dhacday nin raga intuu nool yahayna lagama sano waxaa laga yaabaa dhalinyaro badan oo hadda niyadda dee laga dilay leeyihin noloshii baa ka dhacday waa kugu dhamaantay waxba ma tiid waxna ma qabsan doontid qof marka haddaad saa ku dhahdo oo niyadda ka disho waxay ka xun tahay ruuxa inaad xabadaysid because isagii nool baa wada aastay safiya marka madhabkaas ama ideagaas inaan dadka ka saaro inaan ummadda ka saaro si kasta dhalinyaradan ama uu suuqa ugu jiro ama uu xabsi galay ama ay balwadi oofaha goystay haddii uu nool yahay qofkan wax qabad uu leeyahay dhalinyarada in masaajidada laga xirin inaan la yasin dhalinyarada in yani si fiican gacanta loo qabto oo la dhaho niman yahow soo dhawaada aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay qaybteena koowaad waraysiga halkaas ayuu ku ekaa daawadayaal aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin daawashada waraysigan waa sii wadi doonaa hadduu ilaahay raali ka noqdo meel walba adduunka aa ka joogtiin waxaanii dhaafnay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu